hargeysa maanta waxaan kula kulmay odayga dhinacan iga xiga oo la yiraahdo Daahir Quraysh oo jira 137 jir ah bal hadda ku soo dhawow Star TV Badriyo waxaan kaga waramayaa guurkaygu horeeyay 1921 bishii labaad anigoo maraya marjigiisu dhow oo la yiraahdo Garbaxse Jamaad Sayid Cabdullah Xasan oo sayidka walaalahaayeen ayaa baaragtay waa soo taagay kadib weegaashaana waan ka helay walaalkeed bay ii geysay markaa basri waxaan doonayaa inaad inankana imariso waan siclaanee markaa weli 3 masalo hadduu ka soo baxo waan ku meerinayaa 3 masalo ayuu weydiiyey waxaa yidhi faraskan gaaban goob cad baa la yidhaha fuul adoon fuushanayn ha imanin cilaadoo soo joogtana ha imanin hooyadayna imay ka soo eg inay dhimatay ha sheegin inay nooshaana ha sheegin markaa waan dhaqaajiyey 2 cishaan sii socday waan tegey islaantii laasayo maalin baan ku nastay 2 cisho kalan ka soo dhaqaajiyey waan ag imid kadib faraskii dhugu baa saaray lugna dhulkan jiday cilaadoo barhka soo baxayna oo bannaay dhacday ayaanu imid markaa wintuu qosla yidhi iidoo dhalay walay gaala yaryar kanoo maskax weyn eeg islaantii baa gooday buu odhane markaa baan yidhi afkaaguna laga helo markaan yidhi afkaagaa laga helo bila ciidankii oo dhan shacabkay garaaceen Jamaad baa faras soo dhaqaajisay annakaygii baan ku dhaqaajiyey Sheekh Maxamed Al Qablax ayaa yidhi sidaa gabadha xaggay kaaga dhicin xaggaada ma ku dhacdo kadib gabadha soo booday xagga meeshimid waa nuu nimid Sheekh Maxamed Al Qablax ayuu yidhi taandhada khaymadda u dhisa dhanan ilayow raac farax dhoorow raac soo meeriya sidii baa rabisa lagu meeriyey kadib waxaa dhali weyday 3 sannadood ayaa ku duwaafsaamay markaa basri boqor Itoobiya oo muslina ayaa wari soo diray haddii kaa guursan waayo halkaa waan kaa toganayaa kuna waayi maayo waxaan orad ilaahay baa isqariye Daahir Quraysh sheekadu way noo sii socotay waxaanu ii sheegay da'diisa iyo waliba intii uu jiray inta dumar uu soo guursaday waxaan 137 dumarna waxaan soo guursaday 720 hada haweenkaayo ka sheekay maraaxilka 720 sidaad u qabtay dadku wax dhibaatay wax raaxal weynayeen oo wanaagsanayeen oo kulli waxa la yiri xilaaga lama ceebeeyo waa gartay laakiin 720 diitu oo kale markaa maqaarkood bad furaysay wariga xabad ma soo qabay marxamada quraan dhigi jiray wadaba marka meel ka guuriyay ma raaci may waan furayay tukala meesha kale ka gursan jiray taymkana waxa 3 jir Daahir Quraysh waxa uu sheegay inuu hadda guursaday inaan 23 jira waxaana weydiiyay bal hadda qaabka sheekadoodii iyo waliba sida ay isku fahmeen maadaama da'diisu ay tahay 137 jir ayaduna ay tahay 23 jir taymkana waxa 3 jir inaan baynayay iyadoo waxaan ku kulanay basig jigeer baan raacay way soo fariistay marka baadi eegtay wadhiday anoo naagay oo soo dhirinay kadib waxa dhacday inay jiri waan ka heli waxaan naagayay maxay ka taqaanaba imkaan ku baranayaa wajii kadib ay shaqaysanay 3 shaqale markaa shaqaysanay baabeeru yade hibadii baan ka qaatay barguulad baan lagu meeyay sidii baan gabadh ku qabaa aad baan isaga helnay wala waafaqnay ana xilku doorsanayo iyadana xilku doorsanayo si wanaagna waqtiga aad jirtay waa waqti aad u dheer maxaa kuugu la yaabnaa intii aad soo noqday waxay ugu cajaabsan Hargeysa markii duqeynayo maalin ka fiican ma jirin halkaan Hargeysa baal raabtadeeda anoo ku jira
ayaan ka soo baxay laamiga agtiisa mid askari baasuka saawaysan arkay waxaan soo qaatay heere baashan biibaabtay kancada iyo xabad bilkeya kii baasuka haystay baan ku furay kii baan gubay markaa ma yeerarkii gidaarka ku xidhnaa kama furay kuwii imika baxday joogaa way noolyihiin gabagabadii maxaad soo jeedin waxaan odhanahaa dhulkiina amina nimca wadiin soo socotaa maxda lagama baadhin weli barool wuu noo soo bixi wax walba waa la heli ilaahay ugu kalsoonaada saasaan igu ducanayaa waxaanan odhanayaa ha iska ilaaliya kelmad dagaalkiisa koy ku bilaabmay oo ahaa daymo la kor dhabay gacan loos dhibay hunguri lagu goday waa imaan la-aan ilaahay waxaad ugu carartiin toobad la kor dhabay towfiiq loos dhibay xorriyad lagu goday allah ina siiyo ma dhoweyd su-aasheeda igu dambaysa waxaad ii sheegtay ka hor intaynaan waraysi kaa qaadin oo sheekaysana waxaad ii sheegtay in inankaagu imika aad tiri aad baabuu duqbu noqdayba oo aad kaftanna idin dhex maray bal arrintaa ka war maalmaa ka mid ah aniga xasan cabdi kheyle iyo cabdilaahi dirawal ayaa u tagnay ka buu qaaday oo soo tuuray wuxuu leeyahay war wuxuu cunuysii waaye haddaad dowladtihiin ninkana xila kabtuu soo tuuray buu xasan cabdi kheyle ku dhuftay kadib baan yaabe lacag baan u dhibay uu gogoyba waa sasamey waa 119 aad iyo aad baa